waxa kamida ahkaamti dhaxalka oo laga geliyo shaki diyada kamida maalmahan social media sameeyna arag wala soo fadhiya maxaa gabdhaha konton looga dhigay ragana boqol looga dhigay qofka waxba gareena wax baranin wallahi waa macquul buu leeyahay inay diintu 2000 soo degtay oo kale haddayna 2020 soo degtay diinta oo kale baa lagu oranay maxaa gabdhaha konton looga dhigay raga maxaa boqol looga dhigay waa diintan inta soo qarni soo shaqeynaysa ilaahay soo dejiyay subhanahu wa ta'ala waa tashkiiga diinta qawaamadii baa shaki laga gelinaya waxa kamida waxyaabaha lagu luminaya gabadhu hadii alla idmaayo in laga dhaadhiciyo inay gaf ku tahay dareenkeeda iyo caafimaadkeeda iyo hadii alla idmaayo aqligeeda iyo sharafteeda inay gaf ku tahay ninka inuu la guursado si kula guursan kara adiga ma ku ogol yahay isagoo ku qabanaa kale in kale inuu ku guursado maya sidee isagu suuragal u tahay ilaa kama fiicna inuu naag adiga kula mid kula guursado shaki markaas gabadhe waa karaysa gabigeedii cirkaas maraysa laba maqashin kara marka la yiraahdo inta la waraystaye inuu dhinto inuu kula guursado ka jeceshay inuu dhinto ay fiican bay kula maxaad ka helaysaa aduu dhinto wad agoomoobeysaa oo carmal baad noqonaysaa maxaad ka helaysaa soo ma jeedid waa la gaarsiiyay heerka waa la gaarsiiyay fariintan dad baa loo soo dhaxmarinaya af Soomaali ku hadlaya miidiyaha fadhiya kuwa xaflada qabanaya ama dooda qabanaya baa loo soo dhaxmarinaya Soomaadan garan tartiib baa loogu habaya marka waa la soo kala xulanaya bulshada marka la soo xulxusho baa dood laga dhigaya halkaan uu seeka dhigaya qof dhexdhexaada inuu yahay laakiin ujeedo loo soo dhiibay cid baa ka dhaxadlaysa calooshiisa ayuu ka hadlaya meesha waxyaabahaas ka mid tahay ilaahayna wuxuu leeyahay fankihu ma taaba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa ruba' dumarkii labo iyo saddex iyo afar u guursada baa la leeyahay laakiin iska guursan ma hal inaad guursatid waa waajib iyadu hadii aad marka guurku waajib kugu noqdo wixii kale waa ziyaado waa sunne hadii aad ku filan tahay noloshooda iyo wax alla wixii xuquuq ah ay leeyihiin adaad ku filan tahay laba iyo saddex waa guursan kartaa hadaadan laakiin ku filnayn jaamaci Ali iyo Yusuf baa guursaday guurso sax ma waa qalad dayac iyo ceeb iyo inkaar ba meesha ka dhacaysa shariicadu waxay sheegtay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala aayada aakhirkeeda bal fiiri dumarku inta hore kaliya aayada arkaan Soomaarad Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala hadaydinan awoodi karin fawaahida mid ku ekaysa ilaahay ku subhanahu mid ku ekow waa lagu tilmaamaya wali marka khaladkiina raggi waa ka dhacay waa la guursadaa buu maqlay isagoo aan mid ku filnayn ayuu mid kale raadinaya marka dayici rafaad ku dhacaya kaasa muxuu ceebeeyay ki ku filnaana kaasa ceebeeyay gabadhu inay fahanteen kaasa ceebeeyay waa sax gabadhu dareen bay leedahay way ma seeri kartaa way kici kartaa laakiin waxay leedahay wanaajinteeda iyo dejinteeda iyo khiyaarnimo loo dhaqay leedahay gabadhu waxa weeyaan dumarku ma jecel hadii la guursado waxa raalle ahaada inaad adaab ka baxdaan baa halisu tiin raalle ahaada laakiinse waa wax shariicadu sheegtay oo hadii la idmaayo diintu tilmaamayso waa meelaha la idin soo dhaxmaro waa aayad quraana moogta laakiin hal gees kaliya ha ka fiirin adiga laba indood baa leedahay Soomaa ilaahay markuu leeyahay laba iyo saddex iyo afar xaqan kale muxuu yiri hadaadan awoodi karin inaad u cadaalad samaysaan si saman u dhaqdaan oo xaqoodi ka soo baxdaan hal mid aba lagu yiri ku ekow rasuulku muxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii laba leh ama saddex leh oo aan si wacan u dhaqin oo cadaalad samaynin aakhira wuxuu iimaanaya sida qof faalij ku dhacay oo kale isagoo dhinaca dhulka jiidaya wuu iimaanaya waa astaanta lagu yaqaano ninkii bahalaha oo barna dayacay barna wanaajiyay wax adag baa loo dhigay arrinta Soomaarad ilaahay intuu yiri hal guursada kaliya kama harin rasuulka iyo allaba xuquuq badan baa u dhigay subhanahu wa ta'ala wama ila dhalik waxa kamida waxyaabaha gabdhaha khaladka ku ah ee loo soo dhaxmarayo xijaabki rafdul xijaabki in laga dhigo xijaabku meel adag buu hadda maraya hooyooyinkii hore bal idinku u fiirsada gabdhaha 20 jirada islaamihii dhalay wax ka xijaab wanaagsan ma jiro bal gabdhaha 20 jirada xijaabkoodii waxaad isu fiirisan kaliya idinku markaad galabta baxaysaan iyo hooyooyinkii hablaha dhalay xijaabkooda isu fiiriya shaqo ma isku leey shaqo isku male boqolkiiba boqol hooyaa ka xijaab wanaagsan maxaa adiga keen hooyada ku dhashay saa u xijaaban ma ilaahay baa yiri gabdhaha 20 jirada mid yar oo saambuus loo talay sidiisa oo kale ha xidhan ma ilaahay baa ku yiri islaamuna mid waaweyn ha xidhan miyaa la yiri ma waa qorshe lagu soo diyaariyay waa lagu soo dhaxmaray xijaabkaagi saasa lagu jaray adna waa ku qanacday waad qaadatay Soomaarad ilaahay aayadiisa way ila qiyaam saaca wala akhrinaya
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. رسولك على قبل أبي حاسسكيس قبله سيبا على قبل أبي مركزها مركز الدحالي قبلها مسلمات كان جارسين جلباب ها حدين مروين وجيركو ذا أسطوريس حدين بإله الله سبحانه وتعالى. ذلك أدنى أن يعرفنا حجابك أي حدان با وحي أدو ذا إلا قرطه محي أنهن عفيفات دمر دورسون إليهن وحجابا وأسطرا عيال سوق يدبت الكؤان وأفلقادين وفضولين ولاية الله سبحانه وتعالى. لكن هدي الذي حجابك وقبله هلا قاوي وهلا ضيعوا هلا قو عياره بين قنصة أفو حكم الجاهلية يبغون الجاهلية حكم كيدي بالربان بأله سبحانه وتعالى. إلهي ما هو حكم إلا قاتور روا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إلهي دو حكم إلا قاتال روا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واجباتك أي قبضوا لا ذهي وحاكم ذا إن قبضوا أي حق إلهي كله هي توحيدك يا عقيدة إذا إني صحته وشركك خرافاتك فاليها سحر روجة بلايا ذا صليني كحرودو قبل إلهي كحرا والرسول كيسي تقانا وعقيدته صح وتاهي وإني قبضوا النقطة